codkooda uu gaaray dhammaan geeyiga Soomaalida. barasho uma baahno kullay hore loo sheegay fanaaniintii ugu caansanaa ama dananka codadkooda uu gaaray guud ahaan geeyiga Soomaalida. ugubni ma xishale lugay la waqti afka kama caadin karo ergana uma diiran kare ashrahu ogeysis bale aan milicsado gacanta midig iyo fanaanka da'da yar ee mudooyinka u dambeysay suugaantiisa sida weyn ay u gaadhay saaxadda suugaanta Soomaalida مستر حرير أحمد يرى بيلحني وبغاتك وجهك فوراني وحشوتك اسمع ذفيوي وقراتك الكادي وبغاتك أموضا في عيني وناقا أموضا في عيني وناقا أموضا في عيني وناقا أموضا في عيني وناقا داوديال waxaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair haatana waxaan sii galgeli doonaa heesaheedii waxaan soo qabanayaa al suldaan seeraar suldaanka geeska ku soo dhaw suldaan waan dhawahay walaal ciid mubaarak waxa lagu yaqaanaa kaftanka waliba aad iyo aad inaad suldaanta horta ku caleema saaray hooyaday أبياد ما جعش هنا السودان كجيس كنقطي ما يهدان إمك وابديجو يردي هذا السودان نقول أيه وحنشعرنا نقول السودان كأديمك أبياد هنكاجو حدقها مرة أيام كلنا كسدو هالكلاجو عويه ليدا عريف يديديو هالكلاجو عويه ليدا عريف يديديو كواي عربو وان عقاب بيوده حقي عاوة كوشيدان كواي عربو وان عقاب بيوده حقي عاوة كوشيدان اوكي waxba yaanan ku margeynay markana aan soo dhaweeyo fanaanka da'da yar Mukhtaar Shaafi Mr. Jigjigawi bigala dhoofta wali ka dhursugaye saharay usugan soo dhaweey maashaha mudadana hadheeray markana waxaan soo qaban lahaa kafeeya ku soo dhaw kafeeya barnaamijka wiyahow damacaaga iyo xaqiiqda madeexay sidee waxaagani dhabsanayn damna markaan daalacdan anigu dubaahayga ka jare macallinkii weynaa waxa weeye Cabdifataax Mukhtaar qalbiga laxamada dareenka niftiisa haddadan arag jacaylka dhabtii ku helay niftiisa haddadan arag jacaylka dhabtii ku helay wax ku dhiman baa jiri ciyaaradii goonka dhigin qabriga boodhari ku qana qabriga boodhari ku qana qabriga boodhari ku qana caawo dhan waxaan dib u dhiganayay oo aan kaadsanayay fanaanada marka heesaheeda ama codkeeda xabeebta leh la maqlo ee ay ku xaraga shubtaxaadu ay istaagto waa Mrs. Xiis ilkii wadada